arooryo suuban idilkiin baa khiyaartana dhageysatay waa sabti 28 abriil saacadda Afrikada barina waxay tilmaamaysaa 7 oo buura wararkan idaacaddan subaxnimo idinku hayana waxa kamida booliska Yurub oo sheegay inuu xididada u siibay propagandadii Daesh Israa'iil oo 4 Falastiiniyiin ku dishay duleedka magaalada Gaza dal Afrikaan oo magacii gumaystuhu kaga tagay 50 sano kadib bedelay kaluumaysatada berbero oo kawaan casriya loo dhisay xuska dhaqanka Soomaalida oo jigjiga ka bilaabmaya sidee loo dhowri karaa haddaba hidaha kow agab dhaqameedkan kor loo qaado laakiin waxaan rabnaa agab dhaqameedkaas inuu guryaha u dhaadhaco oo guri walba maanta laga helo fandaalkii xeedhadii gaawihii oo caanaha lagu shubto waayo agab dhaqameedkeena horta marka kow la eego nadaafada kow buu ka ahaa wararkii ciyaaruhuna meesha waana ka maqnayn dhageystayaal soo saaraha barnaamijku waa Cabdiqaadir Yuusuf Cali aan Axmed Nagaashina waan idin la socodsiinayaa subax wanaagsan saaxiibayaal waa tahay wararkaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyaan dhageystayaal marka hore qodobadii wararka dunida ugu doorka roona iyo Cabdifataax Ibraahim Maxamed Cagayare Cabdifataax mahadsanid Axmed madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu sii wadi doono cadaadiska uu ku hayo Kuuriyada Waqooyi si uu isugu dayo in gacanka Kuuriya looga cigtiro hubka nuclear-ka hadalkiisa ayaa imanaya kadib shirkii guusha ku soo dhamaaday ee dhexmaray hogaamiyayaasha labada Kuuriya shirkaas oo labada hogaamiye ee waqooyiga iyo koonfurta ay ku sheegeen inay si caadi ah u soo afjari doonaan dagaalka Kuuriya kadib ku dhawaad 70 sano oo halkaasi ka taagnaa booliska midowga Yurub ayaa sheegay in howlgalka internetka ay fuliyeen 8 dal oo kamida midowgaasi uu si weyn u dhaawacay habka uu wararka dacaayadda ku faafsan jiray ururka la baxay dowladda Islaamiga Europol ayaa sheegtay in ololahaasi uu nabar aanay ka soo waaqsaneyn gaarsiiyay awoodii Daesh ay xagjirka uga dhigi jirtay dhalinyarada hay'ad kamida kuwa qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digaysaa in dhibaatada dhaqaale ee ka taagan wadanka Venezuela ay 100,000 oo qof ay ku qasbayso in ay u qaxaan dalka dibadiisa barnaamijka cunnada adduunka ee WFP loo soo gaabiyay ayaa ku baaqay in wadamada gobolka ay shir ka yeeshaan dhibaatada hay'aduna waxa ay sidoo kale sheegaysaa in Venezuela ay tahay inay dalkaasi u ogolaato in la geeyo gargaar bini'aadamnimo ugu dambeynna warbaahinta qaranka Sacuudi Carabiya ayaa waxay ku waramaysaa in duqeymaha cirka ee xulafada uu horkacaya Sacuudiga ay ka geysteen dalka Yemen ay ku dhinteen 2 qof oo caan ah oo ka tirsanaa fallaagada Xuutiyiinta telefishinka sida gaarka loo leeyahay Al Arabiya ayaa sheegay in ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Xuutiyiinta uu ka mid yahay dadka ku dhintay magaalada caasimadda ee Sanaa wariyaha halkaasi ku suganna waxa uu ku soo waramayaa in diyaaradaha dagaalka ee Sacuudiga ay joog hoose ku dulmarayaan magaaladaasi dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in dhowr dhisme ay waxyeelo ka soo gaartay duqeyntan ugu dambeysay kaas oo ku jira isbitaal ay haweenku ka dhalaan warka caalamkana waa naga intaa Axmed mahadsanid Cago waa tahay dhageystayaal aan ku bilaabay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Xamaas ee Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'iil toogasho ku dileen 3 Falastiiniyiin oo ka qayb qaadanayay Falastiiniyiinta mudaharaadkani waxa la dhigayaa jimcihii shanaad ee xidhiidha Tom Bateman ayaa warbixintan ka soo diray halkaas Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaa inoo haya qofkii ugu horeeyay ee dhimashadiisa la xaqiijiyay waxa uu ahaa Cabdisalaam Bakar oo 29 jir ah waxaana wasaaradda caafimaadka maamulka Xamaas ee Gaza sheegtay inay ciidamada Israa'iil madaxa kaga togteen bariga magaalada Gaza Israa'iil ayaa sheegtay in 100 qof oo mudaharaadayaal ah isku dayeen inay gudbaan gidaarka dhagxaan iyo bambooyin laga sameeyay quraarada batrool ku jiran ay tuurayeen waxaana intaa ku dartay in ciidankeedu adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysa rasaasta raabarka ah iyo mid noolba dadka abaabulay mudaharaadkan oo looga golleeyahay in lagu muujiyo rabitaanka Falastiiniyiinta ee ah in ay ku noqdaan dhulkoodii oo haatan noqday Israa'iil ayaa jimcahan ku sheegay kii dhalinyarada tan iyo markii ay banaanbaxyada bilowdeen bishii hore ciidamada Israa'iil waxay dileen in ka badan 40 qof oo ay ku jiraan wiil yar oo 14 jir ah iyo 2 wariye subaxnimadii jimcaha ayaa madaxa xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Said Ra'ad Al Hussein waxa uu ku eedeeyay Israa'iil inay adeegsanayso awood xad dhaaf ah
taasoo keentay in dad badani dhaawacmaan. waxa uu sidoo kale ku tilmaamay dhacdadan oo ay dad badan ku nafwaayeen toddobaadyadii lasoo dhaafay mid aan la aqbali karin. afhayeenka Mr. Hussein Robert Colville ayaa BBC-da u sheegay in ciidamada Israa'iil aysan si dhab ah u qaadan dambiyada dilka iyo dhaawaca ay ka geystaan marinka Gaza. isla xisaabtan badan muusan jirin oo waa iska caddahay in la adeegsaday awood xad dhaaf ah. kumanaan qof oo rayid ayaa la dilay, kumanaan kale oo badanna waa la dhaawacay. waana adag tahay inaad hesho kiisas waxa dhacay lagula xisaabtamo askarta. kiisaska dhibka iyo naadirka ee baaritaanka lagu sameeyo ayaa ah kuwa ay dadka muuqaal ahaan u duubaan. taasna waa mid iska cad oo aan la qarin karin. kadibna baaritaan ayaa bilowda oo mararka qaar qof ayaa arrintaasi loo xukumaa. hase yeeshee midaasi laf ahaanteeda ayaa ah mid aan badnayn. laakiin Israa'iil ayaa waxay sheegtay inay shacabkeeda ka ilaalinaysay isku dayada mintidiinta doonayay inay gidaarka soo dhaafaan. waxay sidoo kale ku eedeysay ururka mintidka ee Xamaas ee gacanta ku haya Gaza inuu caruur lixaad la iyo waxa ay ku tilmaamtay dhaawac been abuur ah oo adeegsanayso eedayn colaadeed. mahadsanid Cabdiqaadir. waa tahay haatana Berbera. kalluumaysatada magaalada Berbera ayaa markii ugu horeysay loo sameeyay sariibad u gaar ah oo ay kalluunka ku qalaan kuna iibiyaan. wariyaha BBC-da Axmed Saciid Ciga oo shaqo u tagay Berbera ayaa tagay haddaba sariibadaasi kalluunka oo la hadlay kalluumaysatada sariibada isticmaala, macaamiisha iibsanayay kalluunka xilliga uu goobta gaadhay oo haween u badnaa, iyo maamulka. warbixintan ayaanu nooga soo diray. kaas waxa weeye kiiloogu waa 25 waa daray hadda la soo saaray. waa hagaag waxa aan joogaa sariibada cusub ee loo sameeyay kalluunka ee magaalada Berbera oo badda xilligeeda ku taala. bal haatan ayaan ku dhex jiraa dadkii kalluunka qalayay. waa kalluun waaweyn. magacaaga ii sheeg. Abdalla la yiraahdo. Abdalla, bal kalluunkan ii fasir muxuu yahay balka waaweyn qalasaan? kalluunkan waxa weeye waa khayraadkii wadanka waad aragtaa. waxa weeye kan waa saynuub, kan wax la yiraahdaa socobaan, kan wax la yiraahdaa deereg jamali, ka wax la yiraahdaa garam ama xudaar sida Soomaalidu taqaano. marka hadda waa nimcada Ilaahayna sii. waxaan laga saaray waa maxay? marka caloosh laga saaray waa la qalayaa oo dadka dadka saa loo qalayaa iibsaday. marka gabadha dumarka saa iibsaday. xagee laga keenay kalluunka? badda laga soo saaray badda inta. imise dooyad badan baan arkaa halkan oo imka keenay oo dadka markiiba halkan keeno dadka sariibada aad ku qalasaan. imise dooyad maalintiiba galab badda Berbera. waxa gala ugu yaraan 50 40 ayaa shaqo taga. sariibadayga waran maxay u tartay sariibadan? marka way cusub tahay, watan hangara loo sameeyay, watan meel lagu qalo loo sameeyay. maxay idin taraysaa markii hore meel qolal baa lagu iibin jiray ama lagu qali jiray kalluunka Berbera? waad aragtaa sariibadu hadii ku roon nadaafadeedu waad aragtaa biyo baa ku xiran. hadii ku roon yahay waa marmar, hadii ku roon waa qalabkii lagu jarjarayay, mindiyihii. waa meel nadaafadeedu aad u fiican tahay waad aragtaa. dumarkan doonayay inaan weydiiyo oo iyagu aad u iibsanaya kalluunka oo waqti subaxana ay Maliyun Maxamed. Maliyun waran soo kala haday. ma kalluunka la iibsan? waxaan soo kala inaan kalluun iibsado ayaan u imid halkan. marka sariibada ka war waxay ka tartay xaqii kalluunka inuu idin jabo maadaama la isugu wadakeenayo. wallahi aad bay u fiican tahay sariibadu. kalluunkuna wuu fiican yahay, wuu noo fiican yahay, aad buu yimaadaa. maxaad iibsatay marka? noo wanaagsan. waxaan iibsaday 3 kiilo deeraga. wuu fiican yahay, wuu noo. maxaa laga siiyay markaad? waxa laga siiyay kiilooga 25. markii horena dee lama heli jirin oo $5 iyo waxaasana laga siin jiray. Soomaalidu hilibka aad u cuntaa wadagooda Berbera iyo xataa iyadoo xeeban oo sanka laga qabsan jiray kalluunka. maslada wala bartay marka? aad iyo aad baa loo bartay. kalluunka imika xoog baa loo isticmaalaa. magacaaga ii sheeg. Nadiifo Daahir Axmed Baraan. Nadiifo ii waran soo kala haday? waa soo kala ii waran. imisaad iibsatay? waxaan iibsaday 7 kiilo. marka 7 kiilo dhan? familkayga fara badan oo iibsatiin qoyska? waxaan nahay 8 qof. marka jabay imaka uu iska yareeyay. sariibada dumarku ma arko ka waran ka shaqaysanaya, laakiin ma dumarku intay ka siibsadaan xerada ayay meelaha ku soo iibiyaan. tee qaar way ma shiisha adigu? washiila. marka qaar kood siibisaa? marka doona waa siibiya. kalluunka cunisiisa meel la bartay oo imika hilibkii ariga yaa cunaba ki gelaya cunaba waxa la cunaa imika waxa weeyaan kalluunka. maxay marka sariibadan iyo markii hore qolalka lagu iibin jiray maxay ku kala duwan yihiin? waxay ku kala duwan yihiin. waad arkaysaa biyiba ku xidhan, nadaafada waad arkaysaa. tibadu waxay ahayd dhas, waxay ahayd meel hadii la yiraahdo te wax waliba marayaan. imika de hoygaas loo sameeyay de kaale argo yaan nadaafada wadiga imika waxaan dul taaganay qasabad lagu meeydhayo kalluunkii oo adiga arka oo biyihina ay ku socdaan. markii hore ma jirin baa la leeyahay.
kalluunka xigmadiisa qaado. maxay tahay xigmadiisa nibay joojiyay waxa weeye kalluunka waxa uu nafaqo badan ka inta aan dhiigga lahayn aargoosatada bahalka la yidhaahdo saangada. ma badad gasha adigu badda 40 sano badda ku jira. ma doonyahan wax ka wada ku leedahay maay kalluunka waxba kuma leeyahay. hawlga baatay imka wadiga garacasa tahay masaajid baan jooga. waad mahadsan tahay in haddaba waxa isweydiin leh in sariibadan yaa sameeyay maamulka markaa sariibada magacaaga ay sheeg. magaca Xuseen Cabdiraxmaan Cali baa leeyahay. sariibada waxa ma gelisay dawladda hoose oo u dhistay dadka kalluumaysatada waxa kaloo maalgelinta lahaa hay'ad Sharmal oo dhistay laakiin dhismaheeda iyo fududeynteeda waxa iska lahayd dawladda hoose. marka dawladda hoose timaadaan marka dawladda hoose timaadaan ka waran iyada in wasaaradda kalluunka miyay qayb ka qaadan. wasaaradda ka qaatay wasaaradda kalluunka imise kalluumaysataa marka halkan ka faa'iideysa. waxa ka faa'iideysta dhan ka faa'iideysta kalluumaysatada dhan halkan sariibada u noqotay hadda kalluunkaas ka yaro waqti kalluunka badan yahay intaas way buuxsantaa. waqtigan kuleylka miyuu yaraadaa. hayo waxa la geliyaa badxidhanka baa la geliyaa hadii badxidhanka la galana gaadiidka inta badan la dhigaa. xaggaad u iibgeysan marka kalluunka xaggee loo iibgo arkay baabuur lagu raray markay. waxaan u iibinaa Wajaale Hargeysa Burco Laascaanood iyo Cerega waan hadda bilaabayno laakiin inta ugu soo ugu weyn waa Wajaale iyo marka ma leedin qaboojiyaal ma leedin. ha waleen qaboojiyaal ila kalluunka wuxuu baahan kala qurmaya qaboojiyaal fershiban noo kayda aan kalluunka dhiganaa. aad baad u mahadsantihiin Axmed Saciid Cige BBC Berbera. aad buu mahadsanyahay Axmed. halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee BBC da saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 7:11 daqiiqo. warbixinaha kale xiisaha leh inoo soo socda waxaa ka mid ah dhegeystayaal waraysi aan idinka hayno xuska dhaqanka Soomaalida oo ka dhici doona magaalada Jigjiga. waa tahay halkaad weli nagala socotaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay dhegeystayaal bal haatana Yurub. booliska midowga Yurub ee Europol ayaa sheegay inuu gaarsiiyay nabaraanay ka soo waaqsan karin kartidii propagandada kooxda la baxday dowladda Islaamka. taliyaha Europol ayaa sheegay in howlgalkii ugu dambeeyay ee toddobaadkan oo hormuud ku ahaa dalka Belgiumku gebi ahaanba lagu xidhay wakaaladii wararka ee kooxdaas oo la yiraahdo Al-Acmaaq, halkaas oo ay kooxdu ku faafin jirtay weerarada ay fuliso iyo sheegashada qaraxyada kala duwan ee howlwadeenadeedu fuliyaan. Charles Haviland ayaa warbixintan soo diray. Fardowsa Maxamed Cilmi ayaa inoo haysa. howlgalka dhanka internetka ah ee lagu qaaday kooxda la baxday dowladda Islaamku waxa uu ahaa mid farsamo ahaan adag waxaana ka wada shaqeynaya booliiska dhowr dal oo doonayay inay xakameeyaan fariimaha kooxdaasi ku baahiso internetka waxaana ka qayb qaatay booliiska wadamada Ingiriiska, Belgiumka, Bulgaria iyo Mareykanka. taliyaha booliiska midowga Yurub ee Europol Rob Wainwright ayaa sheegay in howlgalkan la qaaday kadib markii muddo sanado ah ay aruurinayeen xog muqaabaraadka booliiska kadibna ay u suurta gashay in ay wiiqaan kartidii kooxda Daacish ee ku duufsan jirtay dhalinyarada. waxaa kale oo uu sheegay taliyuhu maadaama dagaalkii foolka ahaa lagaga adkaada kooxdaasi in haatan ay dhabarjab weyn ku tahay in xaggii internetka ee propagandada ay ka faafin jirtay lagaga gacan sareeyo oo shabakadihii internetka laga xiray. waxaana intaasi uu ku daray in uu filayo in dhowaan dadka arrimahaasi lagu tuhunsan yahay la soo xiri doono. mahadsanid Fardowsa. haddaba dhegeystayaasha BBC da qaarkood ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay warkaas oo waxaa ka mid ah Sacad Maxamed Daahir oo jooga magaalada Dhoqoshay. waxaanu leeyahay arrinka sheegaya in booliska Yurub xididada u siibay propagandadii Daacish waa hadal lagu diirsado waana arrin mudan in ay ku daydaan dalalka kale ee dunidu oo ka hortagaan propagandada kooxda dilka iyo burburka uunu taagan. Cabdiraxmaan Guutaale oo jooga magaalada Muqdisho ayaa aragti taagti duwan qabo waxa uu leeyahay hadalka ka soo yeedhay booliska Yurub ee ah in la cirib tiray kooxda Daacish laga cirib tiray buu wadamada Yurub waxba soo kordhin mayso mana aha mid dhamaynaya kooxdaasi jihadoonka ee waa hadal afka ka dhaun iska ah ayuu asaguna yiri. waa tay dhegeystayaal bal haatan Jigjiga. xuska toddobaadka dhaqanka Itoobiya oo sanad kasta lagu qaban jiray idhaahdee magaala madaxda dalkaas oo heer qaran loo xusi jiray ayaa waxaa sanadkii hore la go'aamiyay in deegaan kasta maalinta xuska dhaqanka qaranka gaarkiisa u xuso. magaalada Jigjiga ee gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu qabanayaa xuska dhaqanka qowmiyadda Soomaalida waxaana xooga lagu saarayaa xuskan sidii qowmiyadaha kale ee dalkaas ee ku dhaqan gobolka Soomaalidu ay wax uga baran lahaayeen dhaqanka Soomaalida. ku-xigeenka madaxa xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Fardowsa Maxamed Maxamed ayaa dabaaldegaas waxay uga warantay wariyaha BBC da Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam oo Jigjiga kula kulmay.
dhaqanka iyo ilaalintiisu waa mid inagu waajiba, waana mid muqadas ah, waana mid ka turjumaysa waxa aynu nahay iyo halkaynu kasoo jeedno. marka sababta keentay in maalin dhaqanka loo sameeyo waa maxay? waxa weeyaan sabab ka turjumaysa qoomiyad walba inay xaq u leedahay inay dhaqankeeda horumarso, diinteeda horumarso, luqadeeda horumariso. taasaa marka u sababa in laga dhigo heer deegaan, waana mid muujinaysa dadaalkeena inagu ka muujinay sida aynu waxyaabaha heer qaran loogu qaban jiray. maxaa lagu ogaan karaa? muxuu qaban karaa isbuucan? wuxuu qaban karaa isdhexgalka gobolada deegaanka. kow inuu la barto dhaqankeena, waayo waxaynu leenahay 11 gobol iyo 6 ismaamul magaalooyin. waxay macnaheedu ka turjumaysaa marka toddobaadkan dhaqanka in la isdhexgalo, maalin la isu yimaado, la wada farxo, dhaqankiina halkaa lagu soo wada bandhigo, waayo gobolladeenu ay kala ciyaar duwan yihiin. midda kale sababta kow aan odhanayna ee sababaynaysa in deegaanka xuskan dhaqanka lagu xuso mar walba aadna loogu weyneeyo waa si uuna dhaqankeena una u duugoobin. hadda xagee buu dhaqanka Soomaalidu ka jilicsan yahay ood ogaateen oo isleedihiin meelahaas u baahan in laga kabo? horta runtii markaynu inagu nahay Soomaalida Itoobiya waxaanu nahay dad aad iyo aad dhaqankooda ugu dhagan, luqadooda ugu dhagan, diintoodana ugu dhagan. marka aad u dhaliilo yaryar oo aan oran karno xagga hadda jiilka soo korayo, waliba markaynu dhahno dadka qurbo joogta ah mooyaan hadda meel uu ka jilicsan yahay oo sheegaynaa ma jirto. dhaqankana geeska Afrika markii la yiraahdo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waa koob u yahay. dad badan ba waxay sheegayaan dhaqankeena inuu sii lumayo markii agabka iyo hidaha la fiiriyo, waliba baadiyaha uu ka soo dabargo'ayo. horta taasi waa run. horumarka iyo ilbaxnimada waxaa la yiraahdaa meel walbana gaadhaya, hadday baadiye tahay iyo hadday magaalo tahay. laakiin wuu lumay ma oran karno, waxaan oran karnaa hadda isticmaalkiisa yaraaday. taasna waxa weeyaan xafiiskan waxa uu taagan yahay iyo toddobaadkan dhaqanka waa hawsha ay u taagan tahay ee aanu u xusayno toddobaadan ugu sameynay maalinkii dhaqanka. taas horta kow ka inaynu agab dhaqameedkeennii soo celino, ciyaar dhaqameedkeennii soo celino. laakiin meel walba ilbaxnimadan adduunka maanta gaadhay oo raad ku yeelatay, laakiin oran mayno wuu lumay, laakiin wuu duugoobay baan leenahay. waana midaan hadda dhaska kaga garaacnay. dad badan baa isu xilqaamay sida la sheegay inuu dhaqanka Soomaalida ururiyo oo waliba si iskiya u ururiyo, laakiin xafiiskan ka eed sheegto oo yiraahdo waxba muuna nala qabanin. taana qalbijab weyn ku keentay. hadda waxaa jirta shakhsiyaad hadda saacadan aan taaganay hadda iga baxay oo raba iskaashatooyin dhaqanka inay sameystaan, waana midaan anagu ku boorinayno. hadda toddobaadkan dhaqanka waxaa lagu soo bandhigayaa carwo bandhigeedka waxa ka qayb galay waa iskaashatooyin soo dhigaya maxayday hidiyo dhaqankii oo dharkiya, agab dhaqameedkii, cunto dhaqameedkii, ayu nooc oo dhaqankeenu lahaa, guryaheeni muxuu ahaa labadariyaalihii, dasooyinkii iyo guri walba oo dhaqankeenu ahaa. marka waxaan leenahay xubnaha anaga ku boorinayna kuna garab taagan shakhsi walba oo dhaqanka inuu hore u qaado u socda. marka waxaan leenahay soo dhawaa. meelo ma jiraan dhaqanka kamida oo bartilmaameedsanaysaan oo isleedihiin halkaas halka hadii lagu xoojiyo dhaqanka intiisa kalena halkaas u yigsan lahaa? kow agab dhaqameedka in kor loo qaado, la sameeyo. hadda xafiiska museumka waxa agabka ugu weyn ee laga soo bandhigaa waa agab dhaqameedka. laakiin waxaan rabnaa agab dhaqameedkaas inuu guryaha u dhaadhaco oo guri walba maanta laga helo fandhaalkii, xeedhadii, gaawihii oo caanaha lagu shubto. waayo agab dhaqameedkeenu horta marka kow la eego nadaafada koobu ka ahaa may jiraynin caano dhanaanaada maanta, laakiin caag iyo waxa la wataa joog aan qiimo badan ku sii lahayn oo tayada caanaha ilaalin. arinta lafteedu miyana qayb ka qaadanaynin in dhirta oo kale in la daayo oo hadii caag loo guuro meeshii geed wax laga qori lahaa? hadda waqtigan dambe cimiladu isbedeshay ma dhirtii iyo dabargo'eedu yimidee waqtigii hore may jirin. aad ba u mahadsan tahay. taasi waxay ahayd Fardowsa Maxamed Maxamed, ku-xigeenka madaxa xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo waramaysay Cabdinaasir Xikam. waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan walanti af Soomaaliga ee BBC-da ee shacabka magaalada Mandheera ee Kenya ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay ka cabanayeen nooliga baabuurta lagu raaco oo qaliyoobay kadib roobabkii lixaadka lahaa ee gobolka Maashiyi. gaadiidleyda ayaa qudhooduna sheegay inaanay eedda iyagu lahayn ee uu qaliyoobay shidaalkii oo wadooyinkii uu soo mari jiray daadad ku jireen. dadka reer Mandheera oo arrimaha ka hadlayaana waxay yidhaahdeen anoo leedahay wiil calasow ka hadlaysa degmada Mandheera muddo bilow jidku waa naga xiran yahay waxayna nooga xirantaa anaga qaadaan gadnaa bishaas qaad waxna noo imaaday malaha jidka ka bilow Gaarisa ilaa Mandheera dhexdooda jid la maraayo ma jirto. magacayga waxaa la dhahaa Maxuuba Cabdi Cabdille, maama ganacsatayaan nahay. dhibaato badan aan kala kulannay wadada xiran, ganacsigii waa naga halaabay, wax noo kala socdo malaha. meel aan wax ka bilownan aqaan laanahay, ilmihiga go'doon noogu jiro, baabuurtii dhaxaan ay ku wada maqan yihiin. marna dawladda inay noo imaado oo wareersan
arkin marna iyadoo gurmud noo samayna maan arkin 47 madaxweyne kii u weynayd 48 madaxweyne meel ay joogto inay wadada saan go'doon ugu jirto maxay ahayd meel la maray la waaya wallaahi waa ka xumahay maxay sida loo doortay nooguma habeen waxaan rabaa inay waajifaani hurdada ka kacaan oo ogaadaan wadanka wax ka jira Mandera county kaliya maahan wajeer saasoo kale waaya Gaarisa waa saasoo kale ilaa Nairobi dhulka inta Nairobi Gaarisa dhexdood wixii inta ka soo jiro way go'on tahay dhulku go'on waxaan rabnaa dawladda inay ogaato inaga warqabto waana wali dhahaa Cabdirashiid Axmed Maxamuud maamulaha Takbir Service Station Mandera xilligan la joogo wadooyinka ayaa badana naga xirmay ganacsiga isu socodkii ayaa kala xirmay oo anagana xagee shirarkan aan gadno oo magaalada aan ku hayna waxaan ka soo qaadnay ilaa Mombasa stoogan hayni waa naga dhamaaday dadkii macbilka ay shaar laga qaadanay baawurleyd taksiyaashi looriyaashi tibarihi wixii baawur la loori oo safar u socdeen u laabanay dhankaas u socdi security baawurtoodii oo meel kale u bixi lahay wixii kale waa isku xirnay shiraryaal awgeed shiraal nadiif dhulkaas ka keen jir shirarkan ma hayn laakiin si dawladda county-yaasha khaasatan Gaarisa county Wajir county iyo Mandera waxaan ka codsanaynaa inay arintan ay wixii tabartooda qaban karaan ay ka qabtaan hadda xilligan jawaabtu waxa way qariiban 10 gaari oo Mandera shir soo wadi ku xaleeman oo jooga Gaarisa sidaal ma laha magaalada Rajalaan wali wax yar noo dambeey laakiin si meesha week dambe loo Gaarisa oo malay si fiican la baabuurta kale bakan loo dhigan doonaa in maadaama baabuur badan bakan laga safar aan jirin ganacsiga kan qasab waa saameynaysa baabuur socod aan jirin kuwaasina waxay aan qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Mandera ee dalka Kenya dhageystayaal wararkii ciyaaraha waxa ugu waaweyn maanta ciyaaraha la filayo in la ciyaaro Premier League Ingiriiska Liverpool iyo Stoke City Burnley iyo Brighton Crystal Palace na waxay la ciyaari doontaa Leicester City dhinaca Talyaaniga haddii aynu eegno waxa maanta wada ciyaari doona ciyaar adag ay dhex mari doontaa kooxda Inter Milan iyo Juventus ayaa ku hogaaminaysa horyaalkaasi dhibic kaliya maanta haddii ciyaartaas ay guuldarro kale hoyatana wax kale ayaa kaga soo bixi doona meeshaasi waa tahay dhageystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC da bal haatan xagga iyo Mareykanka Amina Xirsimeoge oo ah haweeney Soomaaliyeed ah oo u dhalatay dalka Kenya kana mid ah dadka maalgashada Uganda ayaa waxa ay haatan dalka Mareykanka u joogtaa arrimo ganacsi oo la xiriira warshad sonkorta samaysa oo ay ka dhisayso dalka Uganda wariyaha BBC da Maxamed Xaji Xuseen Shiine oo kula kulmay aan idhaahday Minnesota ayay u warantay Amini anigu America waxaan u yimid ganacsi baan u yimid inaan dadka Afrika dadka cadaanka America sida iyagu aamini karaan ina imka Afrika maali la gelin karo xasuusan wadanka beeraha anigu inaan meesha beeraha banimka ka shaqeynayo warshada marka xagga Ilaahi kayga horta loo yimid la metelo beeraha ka shaqeynaysa warshada noocaas ee imka gacanta ku hayso maxay tahay anigu beerahan sheegayo laba wax baan ka shaqeynaya beerta inaan waxa la beero oo hadana dadka beerayana ma aha aniga dadka Ugandiska oo jooga danka waqooyiga ee Uganda iyaga beerta ii beeraya aniguna warshadii baan u dhisay wali waan dhisaya marka de beertii bay iyagu iga iibin doonaan aniguna warshada sonkorta baan hagaajinaya marka ganacsigaaga la fiiriyo ganacsiga aad ka shaqaysato muxuu u yahay muxuu soo qaybsamaa anigu ganacsigan ka shaqeeyo waa ganacsi badan waxaan mool yaashan dhisay waxaan dhisay guryo oo magaalada barta Kampala ku jira meelo aadana logistiga iyo imka ka ugu weyn dadku badan shaqada ka heli doona meel warshadahan soo saaraysa kayga ugu horeysana haga dumarka marka la eego in fact Africa oo dhan kayga baa ugu horeeya ma waxaad doonaysaa inaad samayso hoteelo mise waxa weeye meelaha hurdada ee dadku ay seexdaan ee apartmentada loogu yaqaano anigu dhanka developmentka kale waa waxaan beri hore sameeyay meelo dukaamo meesha aan dhisay iyo hadana guryo oo apartment iyo hotelo dalka Uganda dadku ika kristan weeyaan marka aaminay waxa weeye businesskaasi aad bilowday horumarka ka samaysay markaad bilaabaysay maxaa ku kalifay dunida anigu horta waxaan doonaa ku sheego aniga waa reer ganacsi baan ka dhashay dad weligood ganacsi ka shaqeeyay baan ahay marka anigu maan bilaabin aadaan aaminahay waxaan ka shaqeeyay waxa reerkayga iyo iga shaqeeyaan marka halkaas baan anigu
dadaalkayga iyo inaan eego maxaa kale aan ka shaqayn karo oo fikrad ka badan keeno baan anigu waxaa igu kalife inaan waxaa kale galo. Soomaaliya ganacsigaaga inaad u soo wareejiso ama aad fiiriso hadda ma ku tala jirtaa? Soomaaliya koleyba waa gurigayga hooyo. Qof kasta Soomaali meeshuu joogo gurigiisa inuu wax ka dhiso iyo inuu horumar keeno kaas waa wax qof walba ku fekeraya. Laakiin waxaan mid idin sheegay tacabka imikadan maaligelinta wuxuu u baahan yahay lacag adigu leedahay iyo haddana dad kalena kugu aaminaan ina waxa samayso waxa la dhisayo iyo maaligelin waa wax aad u badan. Marka weli sharci maali lagu geliyo meesha weli lama sameynin ilama waxa la sameeyo markaas baan aniguna xaqana eegi doona. Marka la yiraahdo gabdhaha Soomaalida inkastoo xilliyadii u dambeysay ay qaar fara badan isku dayeen inay ganacsiga galaan haddana gabadh horumarka aad gaadhay oo kale ka gaadha ma jirto. Maxaad kula talinaysaa gabdhaha Soomaalidu si ay ganacsigooda kor ugu qaadaan? Anigu waxaan ku talin karaa inay iyagu galaan informal business iyo formal business. Informal haddaan yiraahdo Frenchiga waxaa la oranayaa waa dadka ganacsiga sameynaya wax iibiyaan wayaan informal. Waa iminka adigoo dukaan yar oo alaab iibinaysa wayaan na badanka Soomaalida ama hotel iibi ama alaab waa informal kaasay ku jiraan. Laakiin waxa iyaga ka maqan oo ka dhigi kara inay mar sida aniga ay noqon kara waa inay iyagu ama warshad ama guryo investment dalka geliyaan. Amina Xirsimooge ayaa ahayd oo waramaysay Shiine waa tahay dhageystayaal haatanna dal kale oo Afrikaan ayaa isna dhawaan taariikhda ku galay inuu bedelo magacii waayadii gumaysiga uu ka dhaxlay sida dalalkii hore loo oran jiray Rhodesia iyo Barfolta oo kale. Swaziland ayaa daaqada laga tuuray magaca kontonkuuradii xorriyadii toddobaadkii hore loo dabaaldegay boqorka dalkaasi magaca rasmiga ee dalkiisa ka dhigay Etswani taasoo macnaha isu yahay dadka dalka Swaziga. Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa inoo haya. boqortooyadii ugu dambeysay ee Afrika ayaa u dabaaldegtay sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegtay markii Swazi heshay madax bannaanida balse dadka wax bartay oo kaliya ayaa dabaaldegaya. Dabaaldegyada ayaa sidoo oo kale waxay ku soo beegmeen sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegtay dhalashada boqorka. boqortooyadan aadka u yar oo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof ayaan arag dagaal sokeeye 50 sano ee la soo dhaafay balse haatan nabadgelyadeeda cago adag kuma taagno. qolyaha u dooda hanaanka dimuqraadiyadda ayaa dibadbaxyo xoogan ka dhigayay dalka oo ay uga soo horjeedaan dhaqaalaha dalka oo sii liicaya. Waxay boqorka ku eedeynayaan in uu nolol raaxo badan isagu haysto wax dan ahna uusan ka gelin shacabka masaakiinta iyadoo dhammaan eedeymahaasina uu iska fogeeyey. boqortooyada Eswatini ayaa leh baarlamaan balse xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi kama qayb qaadan karaan baarlamaanka. hoggaanka Swaziland ayaa kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha waxay ku dhaleeceeyaan in ay mamnuuceen axsaabta siyaasadeed iyo in ay faquuqaan haweenka. waxaa la ii maxkamadeeyey arrimaha siyaasadeed ee aan gacmaha kula jira. Hadda waxaan bannaanka ku joogaa damiin balse waxaan dareemayaa sida inaan nahay shimbir gacan ku jirtay oo la sii daayay. arrimahani oo dhan waddankan waxay ka yihiin mid caadi ah. waxaan u doodaynay in dalkan laga helo nidaam dawli ah oo dimuqraadi ah, nidaam xisbiyo badan oo dimuqraadi ah ay ku tartamaan, balse waana la caburiyey. annagu waxay nala tahay boqorkani inuu yahay mid dadka aad u caburiya. ereyga boqor wuxuu ka yahay sharci. farqiga dhinaca hantida oo dadka u dhaxeeyana wuxuu yahay mid muhiima. marka xagga dhaqaalaha laga fiiriyana runtii waa lagu daalayaa. dadka falanqeeya dhaqaalaha ayaa waxay sheegaan kobaca inuu iman karo taasoo u baahan isbeddel dhab ah. warbixinta Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono 2 duhurnimo saacadda Afrikada Bari markay tahay. inta ka horeysa waa dhammaantiin idinla sidaas nabadgelyo.